السلام عليكم أصحاب الصدوات. waxaan ogeyn saacado ka hor in Israa'iil diyaarado drones ay ku duqeysay caasimadda Tehran iyo sidoo kale magaalada Natanz oo saldhig u ah bacriminta uraniumka hubka nuclear ee wadankaasi Iran. waxaa soo baxday saraakiil sarsare oo ciidamada ah iyo sidoo kalena saynisyahanadii ku howlanaa sameynta hubka nuclearka in Israa'iil ay duqeyntaasi ku dishay. taliyihii ciidamada kacaanka oo la yiraahdo Hussein Salaam iyo taliyihii ciidamada qalabka sida oo isagana la yiraahdo Ghulam Ali ayaa kamid ah labada sargaal ee ugu sareysay ciidamada Iran oo la dilay iyo labadaasi saynisyahan. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu xaalad degdeg ah ayuu ku soo rogay wadanka Israa'iil, dadkana waxa ugu baaqay in meelaha gabaadka ah ay galaan, waxaana howlgalkan ugu magac daray howlgalka awoodda libaaxa. Aeroboortka Ben Gurion oo ku yaala caasimadda Tel Aviv oo aeroboortka ugu weyn Israa'iil waa la xiray, wax diyaarada oo ka duulaya wax ka soo degayana ma jiraan. sidoo kalena gantaalada difaaca ayay diyaarsadeen. marka Iran hogaamiyahooda sare Ayatollah Ali Khamenei iyo telefishinka Iranba waa xaqiijiyay in saraakiishaasi ay geeriyoodeen. marka Israa'iil hadda Iran isla markiiba jawaab ayay ka bixisay 100 diyaaradood oo drone ah ayaana dhinaca Israa'iil ay u direen. Iran waxa ay sheegtay in Israa'iil ay cabasho qaraar oo xanuun badan ay dhadhamin doonto. arrintan wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio waxa uu yiri arrintan hore ayaan u ogeyn, laakiin Mareykanku kama qayb qaadanin. Iran waa inay ka fogaataa danaha Mareykanka ee bariga dhexe inay wax gaarsiiso. waxaan ognahay madaxweyne Trump inuu Netanyahu uga digay ra'iisul wasaaraha Israa'iil